بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مدحونا ku-xigeenka xubnaha hoggaanka xisbiga xubnaha guddiga fulinta xubnaha golaha dhexe xisbiga dhammaantiinba waan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idinka mahadnaqayaa dhammaan xubnaha golaha dhexe ee halka fadhiya sida ay u soo ajiibeen إعلامك إعلامي قبسويدا كفني كوان يقولها الحسبي ككلية أو يوم بدسنا ما طلع سبتي كود كيشون ولا كود يا فكرة وحنان يا يكون قليل يا سلسل بالإنسان الكور تشبس كا أو بالإنسان كور كي يقول ما كأني أتذكر كما تغير وحنان مسمع تغير الجوي كيبي كوالله تلك كل كيبي تبلها وفودي سو تلك تبدي سهولها كل مقنع سو كابيه سفر كودي مركي الإعلامي شركة بتأكد هذا الوقت محطة وعجال هينا كان يكون جيلنا يلو فريق ما قبلها شاء صعبتها كلها قلت تبريد الزمالة وكل شيء خلاقي حسب كبير كل شيء وحاول عدس صوتي انت مبرر الشركة من أولها تبريد الزمالة مدير أحمد حمود سرايو أو تلك اللي عدس كلها قلت وحاوسو بدغay xubnaha hoggaanka iyo guddiga fulinta xisbiga oo uu weydiistay talana ku soo jeediyay in la tixgeliyo codsiga guurteeda hawshooda dib u dhigayaan oo la hakiyo shirkii siyaadiraade hoggaanka iyo guddiga fulinta iyagoo tixgelinaya codsiga guurtiga iyo talada madaxweynaha waxay go'aamiyeen in la hakiyo oo loo joojiyo guurtida muddada ay hawshooda ku jiraan. sidaa daraaddeed waxaan idinku wargelinayaa inaynu muddo kooban dib u dhigno shirkii inta ay guurta hawshaa ka dhamaysanayso. dibna waxaan idinka soo sheegi doonaa xilliga uu noqon doono. waxaan se idinka codsanayaa waa ma dheere inaydaan fogaanin.